ninka wasiirka ahayow maanta nin burcada ayaad ag joogtaa taaraa aniga adiga cadownimo nagama dhaxayso maba naga dhaxayn karto maxaa yeelay aniga adiga isku midaan nahay aniga waxaan ahay nin burcada oo qoryaha ka ganacsada adigana waxaa tahay nin wasiir isku sheega oo dharka cadcad masaakiinta ku khayaana dhallinyaradana ku qasba inay burcad noqdaan taaraa aniga waxaan u baahanahay shaakaa madaxiisa haddii kale adiga ayuu ku dilayaa waad helaysaa ninka waad helaysaa aniga ayaana raadsanaya laakiin mudana raajaa waxaa jirta wax kastaba heshiis ayaa ka horreeya sheega khaymaha adiga waxaa tahay nin wasiir ah gobolkan adigaa heesta dadkana adayga kaa dambeeyaan ha u bixin muhiimadda waa inaad ka hadashaa muhiimadda haddaan ka hadlo ciidankaaga 4 ciidan ayay iga heestaan waayahay waa inaad muddo isiisaa marka si aan kugu soo dayo ciidamadaada aniga waxaan rabaa inaad xuduudka dhaafisid aniga keligay ma cabsanayo laakiin ciidamo fara badan ayaan wataa aniga mana doonayo in militarigiinnu ay ciidankayga iga baabi'iyaan oo keligay aan ka baxsado ma doonayo aniga taas waayahay waxaad doontan aniga ayaa kuu samaynaya waa hagaag wax kasta waa lagu samaynaya adigana shaakar madaxiisa anigaa inta kugu keenaya waan oggolahay fiiriya nin wasiir ah ayaa nin burcada salaamaya maanta dawladda iyo burcaddana waa heshiis magaaladan abarteeday ka tahay inay nabad u timaado burcaddana sidaa ma ku dhammaanayso beledkaan ma ku noolaa kartid dadka qalloocana rabtaa inaad tootoos dadkaan ma toosayaan hortaaday qalloocdeen dadkaan gaandiyaa ku wareeri adaa rabtaa inaad toos mana toosi kartid kaaga sii daran beled oo la qaabayaa tagti adi kaligaaga dhar ku xiran dadka waa kaa maseerayaan waxay ku leeyihin annaga waa qaaban ninka maxas dhar u gashtay taas too soceysa maaha waxay dhihi jirtay jaamacadan wax ka soo bartay walaa rubuneed camalaa lagu furfuraa run ha kuu sheegay beledkaan inaa iskaaga tagtid leen arkoya waxbarashada aa sheegoys dhimasha lee keelayaan ku dhahay meeshaan dadkaan ma toosayan soco maxaan ugu tagaa laakiin meesha waa bixeeyaan ku dhahay waa bixeey maxaan qadada sameeyey marka waxkaan saaxiibka hadalkuu ku dhahayo waa run oo meeshaad ka imaaday inaad ku laabad ayay danta kuugu jirtaa adiga daacadnimaad ku dhigan tahay waddankan daacadnimo lagama isticmaalo run ahaantii 2004 taariikhda dhexda haddii aan kaaga sheekeeyo madaxda waddanka qolal ka tirsan ayaa dembi galeen kadibna laaluush ayay dhiibeen si dembigooda loo dadaboolo madaxdii mar haddii ay laaluush dhiibayaan shicibkana laaluushku waa inay dhiibaan sababtoo ah madaxda ayay ka wataan adigana daacadnimo ayaad ku taagan tahay warniga waxaan ku leeyahay meeshaad ka imaada isaga laab war meeshaan daacadnimo kama jirto ee waa inaad indhaha iska qabtaa horaa waxaa loo yidhi haddii aad tagtay meel laga ilaa ee adigana waa inaad ish istirtaa marka adiga dani waxay kugu jirtaa inaad aniga hadalkayga qaadato waxba indhaha ta taagin adiga waana intaas ayaa kuugu filan haddii aad hadalkan rabtidne magaaladan sii joog dhibaato ayaad kala kulmaysaa haddii aad ku madax adeegtan aniga magaaladan waa sii joogaya hadda ka hor arrin ayaa dhacday arrintaas ayaa rabaa inaan kaaga sheekeeyo wasiir ka mid ah dowladda ayaa wuxuu sameeyey daacadnimo balse xaaskiisa ayaa ka hor imaatay sababtay xaaskiisa ugu hor imaatay ayaa waxay tahay waxay ka mid tahay qolada laaluush ka qaato labadoodana waxay isaga hor imaadaan mar walba sida laba waddan oo isdagaalayso kale marka adiga waxaan ku dhihi lahaa jeesan kula dheeraan waa inaad maskaxdaada ka shaqaysiisaa haddii aad rabto arrinkan oo dhan inaad ka hor tagto waddanka waxaa ka jira kalaabkaasoo dadka lagu dhibaateeyo sidoo kale qoysaska waa la dhibaateeyaa oo laaluush ayaa la qaataa weliba waxaa sii dhinac yaalo dadka mas-uuliyiinta inay adeegsadaan lacagooda si ay dadka u dhibaateeyaan marka adiga ha isku dayin dhibaatooyinkaasoo kale inaad xaliso waan xalina haddii aad dhadan waxba kuuma tirin sababtoo ah qof walba dembiyada uu gala laaluush ayuu ku daboolaa maxaa dhahdaa laaluush ah kaada adiga dadkan oo laaluushka qaadanaya xaggaaga waxba kama ahan soo maahan okay waa muxuma aniga wax ka qabanaya laaluushkan anigaa meel saari doona aniga cabsi ayaa ii haysa maxaad ka cabsanaysaa adiga xayawaanka sidiisa wuxuu baqaa marka asiga lasoo weeraro anaga bini aadam haddii aan nahay nolol xun intaan ku noolaanay waxaa wanaagsan hal maalin nolol farxadda inaan ku noolaano kadib aan iska dhimano waayo anaga nolosheena ma waxaan u baabiinaa shacab weynaha noloshooda ma adiga sidaas dhahayo maxaan kuu dhihi waaye dadka aniga aan ka hadlayo waa dadka xunxun aniga waxaan doonaya adiga garab aniga midaas kulama qabo maxaad ku diidaysaa waa dadkan fiiri qalad ayay galayaan arrintaas arrinaan kaa yeelay maaha ukaadi adigu waa qaldantaa iska bax aniga waxaan doonayaa dadkan inaan meel saaro dalkayga iyo dadkayga ayaan doonaya wax inaan qabto taasna hore ayaan cilmi ahaan u soo bartay ma laga yaabo dib aniga inaan ugu laabto dadkan waa inaan meel saaraa aniga maxaad ii eedaynaysaa ma waxay kula tahay aniga qof daacadina ahayn adiga haddii aad tahay qof daciif ah ma laga yaabo inaad la jaan qaado qof anigoo kale ad adag haddii ay dhacdana taas mid fudud ma ahan ee waqti ay kugu qaadanaysa abukaatali adiga anaga garab na sii kartaa arrintaas sida garab kugu sii karaa ii sheeg bal abukaatali wax walba ay dhici karaan
aniga dadkaan ka hadlaya maahan dadka u fiican waxaan ka hadlaya dadka xun oo lalus qaataha ah hadda uu fiiri askarta waxaa macquula 1,000 in loo qoro balse 100 ayay sii rafaad ku soo gaartaa 900 oo kale yaa cuna ma taqaanaa madaxda ayaa cunto askarta wax walaal sii danta dhow waxay ku kalifaysaa dadka inay lalus ka qaataan dadka ay dhacaan yaa ku kalif marka dhibkaas oo yaa keenay madaxda ayaa keentay balse anaga 100kii waxa laga helaa shan fiican maxaa leeyahay ma taqaanaa qofkaas uu waalan yahay qof fiican maahan intaas waxaa u keenta ma taqaanaa daacadnimadiisa dadkan dad daacada maba doonayaan waxay rabaan dadka xun oo keliya inay meel saaraan hadda fiiri dadka daacada ah dad xushmeynaya ayaaba jirin balse dadka xun oo laaluushka qaata dadka dhan way xushmeynayaan waxa lagu yidhaha qofkaas waa qof magac leh laakiin anaga cidna arkaysaaba jirin balse waxaasoo kale anaga dadka inaan ku fiirsana maahan dalkeena iyo dadkeenaba waa inaan wax u qabanaa arrintan indhaha anaa ka xirana maahan arrintan waa inaan daaha ka qaadnaa runtana shacabka